بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال ربنا جل جلاله: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم، بلغ رسوله النبي. وقال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله إله بقى ما هذا إسكاله إن شاء الله نقول كل مية كلن كان
aan rajaynayna in shaa allah on ilaahay ka baryayno inuu nagu dembi dhaafo leanna kulan loo kulmay in ilaahay lagu xuso oo aakhiro la xusuusto oo dikriga ilaahay meesha lagu soo qaado waxaa lagu ballan qaaday in ilaahay subxaanahu watacaala dadka isu imanaya uu u dembi dhaafayo inuu naxariis u soo dejinayo inay sakiina ku soo degayso iimaanka u siyaadisha in intaasba wax ka weyn allahu rabbulcaalamiin uu dadkaas isaga dartii u fadhiistay inay xusaan isna uu xusayo taasaa bana ugu weyn in ilaahay ku xuso oo magacaaga sheego oo meel majmaca ama mala ayaad ku xustay mala ka sharaf badan mala'an oo almala'u alaclaa uu kugu xuso waa wax aad u weyn wey fadkuruunii adkurkum aayad lala yaabay noqotay fadkuruunii aniga i xusa buu ilaah yidhi adkurkum anna waan i xusa oo maxaa tahay adigu insaanow fii mulki illaahi boqortooyada ilaahay marka la fiiriyo eesh tusawi walaa shay adiga iska dhaafee meesha tan aad degan tahay dhulka la leeyahay dhibic kama aha markii loo barbar dhigo nujuumtan iyo waxaan falakuudka ahee shamsadeenna ama qoraxdeenna ku wareegeysanaya walaa darra waxay tahay ma jiro xadigaha cirka hadda inoo muuqda iyo kuwo badan aanaan arkaynin inta badan maba aragne iyo jayga dhulkaa isu dhig baa la yidhi badnaansho waxay ka qabaan dhulkana way ka waawen yihiin intooda badan marka yaan lala yaabin baa la yidhi haddii la yidhi jannada qofka ugu darajo hooseeya adduunka 10 laabkiis baa la siinayaa yuuna shaydaanku wax yaab la kaaga dhigan oo waswaas ku gelinin oo kii ugu darajo hooseeya adduunka 10 laabkiis say ku suurtoobaysa 10 dhagax jay oo la siiyey maxay adba 10 quruux soo ururi jay maxay ka dhintay inta ilaahay waa kala liidataa mulkuhu waasic jannada iyo naciimkeeda markuu ilaahay ka soo sheekeeyey ilaahay wuxuu yidhi inna hada la rizquna maa lahu min nafaad maba dhammaanayaba inna hada la rizquna maa lahu min nafaad waxaa kaloo dhan waa dhammaada maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq marka ilaahay cadamadaas iyo weynaantaa lahaa jala jalaaluhu makhluuqaadka uu sameeyey markii laga sheekeeyo almala alaclaa ee qeybka naga ahayn aan arkaynin waxaan arkayno waa wax weyn waxaad ku cibro qaadato ood rabbigaa ku barato oo aad ku waana qaadato ood aakhira inay jirto ku qirto ilaahay wuu ku tusay ilaahay waa ku tusay ilaahay dhul buu ku tusay ilaahay cer buu ku tusay ilaahay qoraxdan soo baxaysa ee ilbiriqsi in la eg aan isdaba mar intaa lahayn oo haddana adduunka sida loogu qeybiyey cajaa'ibteeda ay leedahay berigii hore dadku intaan hadda aad la isu dhexgelin oo itisaalaadkan iyo xiriirkan usan dhicin waxaa la moodaya adduunka inay kulligood mar uun usoo wada baxdo oo mar u wada dhacdo laakiin hadda maxaa la ogaaday qolo waliba inay wakti leedahay ay iftiinkaas iyo qoraxda helayso oo intay iftiinka iyo qoraxda haysato kuwa kale ay habeen ku jiraan tanaa kasii cajab noqotay على قدرة الله هنا كسي دليل نقطي وعظمته وكبريائه لو كان الإنسان يعقل أدو عقل ليه وربك حسوسنا أنا ما كجوجا إلى سو هذا يعني ولا سياتل ماشي الإيران مريكن كطرف كيس غربك مدرسة قرآن كويا ما برنامج بين ما وده هذين مركا فاشتم كالإسكار كان كوض هذين مركا koox soo xajiday oo iska baadiye isaga badanaya meesha joogo ma rumaysanaysaan baan ninka anagu markaa 12kii habeennimo kowdii habeennimo aanu marayna ma rumaysanaysaan baan ninka ila hadlayay inuu maalin qorax leh uu joogo kowdii duhurnimo ama labadii duhurnimo inuu joogo ninkan ma rumaysanaysaan shay ku dhici kartaa waa kan baa wareeda ku qabo intaad banaanka u baxdo ka bax meeshaad joogto qoraxda ku qabo facetime-ka ha arkeen qoraxde عليه هو أركن سبحان الله بدين هذه قدرة الله ونحن في ظلام يا مجدي
هذا إلهي وكتشي جل جلاله يوم القيامة مركي dadkii aan aakhiro rumaynin ee gaalnimada ku dhintay walciyaadu billaahi ilaahay markuu soo ururiyo oo bayna yaday ilaahi la soo horjoogiyo allahu rabbul caalamiin wuxuu ku oranayaa kama qaala fi suurati an-naml ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون markay yimaadeen ilaahay wuxuu ku yidhi aayaadkaygii dalaalaadka ahaa ee waadixa ahaa miyaad beenayseen oo maydaan rumaynin oo maxaad ka shaqaynayseen anaa idin abuuray oo adduun kownka idin keenaye maadaa kuntum tacmaluun wax kaleed qabanayseen maxay ahayd ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون waxay ku hadlaan bamale waxay oranayaan dulmigoodii baa qowlkii jahannamo ku waajibay ku dhacayo waxay ku hadlaan bamale ilaahay muxuu ayadaas muxuu daba dhigay alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqawmin yu'minun miyaysan arkin oynan arag inaanu habeen iyo maalin u samaynay habeenkiina mugdi sakan iyo deganaanshaan uga dhignay maalintiina iftiin ay ku shaqaystaan ay fadliga ilaahay ku doontaan uga dhignay taas waxaa ku sugan aayaad iyo dalaalaad ilaahay lagu rumeeyo intaasaa kugu filan ayuha alinsaan haddaad caqli leedahay waxaa ilaahay ku tusay marka wax weyn wey waxaa ka weyn waxa aadan arkaynin jibriil calayhi salaam wuxuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam habeenkii lay dheelmiyey baan arkayoo khilqadii loo abuuray ilaan markuu dhulka u soo degi jiray nebiga sala allahu alay wasalam isagaa waxyiga u keenay macallimkiisii qur'aanka u keenay buu ahaa ee ilaahay uga soo qaaday marka markuu nebiga la kulmi jiray calayhi salaatu wassalaam marna isagoo insaan isu soo ekeysiiyey oo bashar oo kale ah ayuu u iman jiray marna arki maayo ee sawdkiisa unbuu maqlayaa markii la dheelmiyey suuradiisii xaqiiqada ahayd baa ilaahay tusay waxaan arkay bu jibriilo 600 oo garab leh janaax idaa madda janaaxan waaxidan hal garab hadduu fidiyo sadda maa bayna almashriqi waalmaqrib meeshay qoraxda u soo baxdo iyo meeshay u dhacdo ayuu daboolayaa hal garab keliya hal garab hadduu fidiyo imisaa u hadhay 599 garab oo ma fidinaya waa fidinaya meel ku fidiya ma la sameeya ha weliba meel uu ku duulo awoodda baashan yare diyaaraddeena qaadeen la yaabanahay labadaas baale intay goynaysa aad aragtay baalkii keliya bayna almashriqi waalmaqrib oo 600 ah meel uu ku duulo isagu daalaya hadhow uu dhammaanaya ayaa jirta isagun baa daalaya sida adiga hadda labadaada lagu yaryarka haddaad tiraahid adduunkan ku dhammaynaya min daraf ilaa daraf adigun baa daalaysa uma goyn kartaa adun baa iska fadhiisan marka dambe ee dhulka ilaahay dhammaan maayo jibriilla waa lamid iyo malaa'igta kaleba kaba sii waaweynba waxa ilaahay abuuray allah garan ilaan carshiga oo akbar makhluuqaba malaa'ig xambaarsan baa jirta wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin 8 kulli waa la arki doonaa yowma alqiyaama waa wada arki doonaa hadda ma arkayno marka cadamada ilaahay shaa u weynaa jala jalaaluhu wacama nawaaluhu adigaa miskiinka ah wax alla waxaa tahan jirin fii mulkihi inuu ku xuso oo magacaaga sheego wax ka weyn baa jira haddii boqor adduunyada ka mida uu meel baarlamaan la fadhiyo ama shirkiisi wasiiradiisi wax dhan u dhan yihiin oo ku yidhaha hebel guuleed ma aqaanidii ku jira in kale laakiin yani waa iska soo qabsaday soomaali jabuutiga idinka badan guuleed muhim hadduu hebel yidhaah ama xasan ama yuusuf ama kada waa nin wanaagsan oo muwaadina oo jeclahay oo fiican ka waran ninkaa wanaagiisa ma ninka farxad badnaanayaa jira aad buu u farxayaa boqorkii dhanaabaaba i xusay oo i sheegay magacayo idaacadaha laga wada sheegaya waa kaasoo markaas aad loogu farxay fakayfa bimaliki almuluki ذي الجلال والإكرام رب العالمين
الذي لا إله إلا هو ولا شبيه له ولا نظير له فاذكروني أذكركم. وحل لي بين نغوتي أي حديث كي كلا فإن ذكرني ذكرته فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هدي أتكلي ربك حسته وأد ربك حسوسته إلهي أذينا كلي أبوك حسين كلي أبوك حسين دا جماعة حسين إلهي جماعة أذيك أشرف بدن جماعة داس أيوك حسين ووحوين إلهي نسيه وي سبحانه وتعالى وشرف إلهي نقارسيه وي وكرامة من الله عز وجل. إلهي رب العالمين ملك الملوك لؤذ يا أرقي جيلة كما حقنو قرابة أهان إلهي قرابة لمنين إلهي نسب مله الله جل جلاله نسب مله أبا مله وأحمد لما دلين لم يلد ولم يولد أعظم سورة في كتاب الله أو صدح قرأ هذا القرآن كنا آخر سورة الإخلاص وإلهي اسكو صفيني قل وحاتلا يا محمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مركة تشريف هي تكريم خاصة إلهي أذيك كوكو خاصة سيمويه حولها كلي أذيك أذهب هنا نيش أدعون تكو منافع كوه إلهي كما حكتت قرابان وكما حكتت رب العالمين وكو من نجتي وأكرمك جنس البشر با إلهي فضلي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. مركا جلسة إن إلهي ذكر جيس إنه إلهي نحو سبحانه وكفلينا هذا أولا. هذا الكي قال بدأ قضب يعني اسكودية إن كسو كوبو النبي تلمامي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قفكي جعل وأنا وذا جعل لها مؤمن كستو جعلها إن جهنم اللي قبض باديو نار جهنم اللي قبض باديو أو جنة قالوا قفكي جعلوا غير ذا هكوتي ما دو أديقو إيمان بربك وباليوم الآخر ربك يا آخر أضر ميشن أو إيمان ربعه له هكوتي ما دو غير ذا وصلا كلهم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. دad kana si wanaagsan ula dhaqan waxaad jeceshahay in adiga lagula mucaamalo ama lagula dhaqmo dadka kula dhaqan. diintii oo dhan nabigu labadaas qaybood buu ku soo ururiyay baynaka wa bayna rabbik iimaan baa ka dhaxay inaad ilaahay rumayso aakhirna aad rumayso ilaahay qofkii rumeeya on liqihiisa iyo kulankiisa rumaynin ilaahay waxba ku fali maayo wala yubaali bihi qof aakhira beeniyayna ilaahay jannada ma gelinayo نار تانا مصيرها والذين كذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. آيات إلهي نتسي كل وجد إن الآخرة رميسو يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. دارتان الدنيا إني دار معبر تاعي أو وحير لمودي لقد بيئي تاعي ماشي أصل كا مستقر كا إني دار الآخرة تاعي بإلهي نو شيء في كتابي كان نو شيء وكان دون كان لا آخرا لا سقال إشكال لا بد بسقال أدون كمركو تلمامي حياة وحكو تلمامي غرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب آخرا إني دار القرار تاعي أي إلهي كو تلمام سبحانه جل جلاله أدونك إني متاع المسافرين تاعي ديار هذا يعني ديارهم واوين خاصة ميلها فوق سدح درجة وسبعية فرشت جلاس ميل بالليلة وكراسي واوين كوكلا وحكوا حاجة الليلة بزنس يعني رجال الأعمال بيدهن أعمال صالحة رجال الأموال إسكرها وحكوا شيء حاجة تنقودا بيو مدونا يعني بضاعة ذا عيانه وحكوا تلما من سياحية درجة الثالثة مرة هنا وحدها الدرجة السياحية ما إنجليزي إيكونومي يسموها إيكونومي واقتصادية 100 درجة الاقتصادية 100 مركي اللي فسروا الدرجة الاقتصادية كل قدوة مسافرين كي سفكه رجالي كي دحذ قالي كي قدام بي مرمرة إلهي نوافجيها وسفكه ران عن الله ما قرب وكرسي وين مرة وكرسي مرة وسرير وسرير بات كدغان oo bad iska seexan cuntadana kala go'ay bambaysho
wixii ugu wanaagsanaa oo dhan baad haysataa damaad garan بالاختيار buug baa lagu keeni kala dooraa lagu leeyahay baynamaa kii ugu dambeeyay gadaal fadhiyey kursi yar oo dayiq oo ciriiri ah anigoo kale iyo dadka burburan ay ku dhibtoonayaan cuntadana mar baa lagu soo tuuri wax lagu dooransiinayaana ma jiro maxaa yeelay lacagta aad kala bixiseen baa kala duwan mansibkiina kala duwan laakiin kala duwanaashadaasi waa athnaa safar faqad intaad musaafiriinta tihiin bas intaad musaafiriinta tihiin waa kala mataac fiican tihiin nin daraja alulaa buu ku jiraa yatamatac wayartax kulli shay oo meeshaasa wixii ugu wanaagsan isaga haysta midna waa xaggaa dambe laakiin haddii safarkaasi dhammaado kulli waa laga degaya qof ku hadhaya male laguma ogola inaad sii joogto waa meeshan wallahi kursigan waa cajab galay waa sii fadhiya laguma ogola haddaad si wanaagsan ku degi weydana si aan fiicnayn baa lagu dejinaya mid kalena laguma ogolo inaad wax ka qaadato lacag badan baad bixisay hadda qadar oo kale ilaa yurubta businesska markaa fiirisid diyaaradda ama feristika waa lacago badan $5,000 iyo $1,000 iyo marka qaar waa ka badan lacagtaa fara badan baan bixiyey kursigan waa la tegaya laga yeeli maayo kursigan waxaad u bixisay litamatuc safarkii waana ku dhammaatay yalla inzil mana qaadan karti waxbana qaadan kari mayso adduunyaduna waa sidaas adduunyada dadka ilaahay waa kala duway ilaahay baa risqigana kala qaybiyey ma aha shadaarana ma aha ma garanaysaa firfircooni ma aha wax alla waxay tahayna male alrisqu biyadi illah allah yaqsim bayna cibaadihi ilaahay baa dadka u kala qaybiyey qur'aankuna noogu sheegay نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كل شركة هدي وده مدير نقدان يا الباب إلى هنا يا شاه كوشو يا كوش شقينا يا مقل كوفر سلاي ما في لازم ورفعنا بعضهم فوق سيادون كوسعود فوق بعض درجات جنة تاس إلهي دي لأن جنة وحكى لك خدميني في الجنة وما بهند بدي يعني خدم واجران أو للإكرامة لكن وحكست إلهي وحكر جيبه حديد تعبير كاس وصحيح نقض أوتوماتيك كل شيء جيد كاس مليهيسا مجرد قلبك وكسر دعو أنا بادرك تأمل من أول أحسن لا أنت باب هلك كوي إيمانيس مركز هذا سكجو سنايس مركز هذا ما يستنا ماشي يكون نقنايس وهرمر أن لجارين وهي في الدنيا وأمركم إلى قطوفها دانية مفسرين توعد أن يتناوله القاعد والمضجع والجالس كل ماشي هذا وجيف حتى هذا قلبي بكاك صور عضو لا أنت هلك أكثر هذا الكيس مركز تسخير كأين لك على سرسريو قول لي سأديك سيدو في الجنة ما في ملي لكن في الدنيا إلهي بها رزقك كالقيبيي حكمة وين بانا كدم بيسا شيء الدنيا ده وسعته لكن أقو هذا من الله ليس من شطارتك معها هذه مسكعداد أنا معها ورقاق أنا معها ومن الله عز وجل وتقسيم من الله فالإيمان بالله واليوم الآخر وقيبتك هوري قيب طلبات المعاملة مع الناس خاصة شركات كينو كلا أو خدمات كدتك يلا كلن كيس يدتك أو خدمات أي مهمة إنه بأيتاي أو شغلة إنه بأيتاي وإن قيبتها هذه شغلة على لسان الله يديم وافجي لأن ذلك يورم باكو إيمانه ذلك وكلا أخلاق ونكسينهين وكلا دويهين مد باكو قيلنا مد با شغل بس كحنا أحسن مد با ريركيسيس كسو حناقين كو إيمانه وكو سنة وكو إلى آخره المهم هذه محل لقى دون إياه ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن معاملة ضدك دحديسة إلهي وحوين بو دحدي بل نجاتك إيا بدبادة يوم القيامة انت بدن والمعاملة بين الخلق لأن الله كريم حقيس إلهي واسكع فيها انت بدن نبا هذا كوه روحو ربني إسرائيل بو أهايو مسلم بو أها آخرنا ورميسنا لكن عاسبوها دنبيلا ودنبي بدن أو أعمال صالحة عن لهين حساهاتي مال قبين بو أها خصلول أرن بو لهايو عادو وهيدو وحورن جري
dadku deymin jiray lacagta marka dhalinyarada u shaqeysay wuxuu ku oranayaa khadamkiisu wuxuu ku oranayaa ordoo lacagtii deynta iga soo qaada dadkan ku leeyahay ninkaad u tagteen hadduu muusir yaho iska bixin karo iga soo qaada walaakin tayaasaru macahu hadalka u fududeeya oo ha ku dhibina haddii uu mucsir yahay oo uusan iska bixin karin oo la go'dayna tajaawazuu canhu iska cafiya lacala allah an yatajaawaza cana yowma alqiyaama waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagana yowma alqiyaama iska keen cafiya intaasuu odhan jiray khadamkiisa saasay ku shaqayn jireen kii mucsirkaa iska dhaaf sayidkeenna iska dhaaf wey lacala allah an yatajaawaza cana ilaahay ninkii yowma alqiyaama uu keenay wuxuu yidhi maxaad camalood saalixood haysataa waxba ma haysto ma cando ay camal saalix ilaahu arrintaasaan lahaa buu yidhi oo maxay ahayd dadkan lacag deymin jiray oo xoolahayga deymin jiray oo markaa haddii uu muusir yahayna tayaasaru macahu baan ku oran jiray shaqaalahayga hadduu mucsir yahuusan iska bixin karinna tajaawazuu canhu lacala allah an yatajaawaza cana baan oran jiray ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bihada mink annaga ayaa karamka iyo wanaagga kaaga awlaysan tajaawazuu can cabdii addoonkaygana iska cafiya adkhiluhu ljanna jannada ha tago waxba ha fiirinina hada karam allah caza wajal bilmucaamala ayiba mucaamalada wanaagsan marka sharikaadkiina idinka waxaa lacag ku leedihiin ma jiraa xadiidkaa saaka in laydinku aqriyo bal ka waran wadaad masri oo marmar aan lacag ka dayndaynsan jiray sheekh cabdinaasir la yidhaha iska ma garanaysaa waad garanaysaa dee qolooyinkaas waa waxoodu meel buu iska yaallaa sida soomaalideena marba meel telefoon loo soo dirayo wax soo tuur la oranayo mae markaasaan lacag ka qaadan jiray beri hore ahaydo maalintii dambe uu yidhi sheekh waraaqdii waa dheeraatay aad deynta qaadanaysa iska ilaali waana ardaygayga qur-aan buu igu hay alwaraqa taalat ya sheekh cabdirashiid buu yidhi waa wax badanaa meeshan jira markaasaan horta insha allah waa ku siinaya lacagtii laakiin xadiid baan kugu dul akrinaya awal shay aqra caleyk xadiid ها طيب الحديث زين نسمع ومقلينا حديث كان واخري والحديث في الصحيح يعني كان رجل من بني إسرائيل كان يداين الناس وقال يقول لهم تياسروا مع الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا يا شيخ عبد الرشيد أرجوك الحديث كان يقول آخر مت كان إرادي كان يقول آخر حولي ما يقول له مي لأن هذيك لي ودينكم اللي تذكر الدين كلها فمشكلة كبيرة ما تقرأ لكنه حديث مهم واحد بلي دويدنا أنا ما كجوجا مسجد يرو ماشي عند دقنا هي حافظة عزيزية أيا صلاة عصر كنا توجد هوان تجي مساجد كتاب ماشي يالله فضائل الأعمال كوي يالله عماش فضل هذا كشيء كيني أي دهن شيخي إمام كنو أهنجري أنو أخري جري أنا أنو أخري كتاب كيف أنا أخري حديث كان صباحي وقمت له قال بوان حديث كان أخري وأنا أخريه وحوجي تعليق أصلا كبحي إن إلهي وحوين دقي تجاوزك إيه فضلك إيه إحسانك بين الناس إن إلهي سبحانه وتعالى خير فربضا ودح دقي وجندي بيكو كين تيبان كهل نبى يستاقي وحوري يا شيخ ويا جماعة كل أشهدكم أن لي على فلان ابن فلان مقعش الشيء 80,000 تجاوزت عنه لعل الله أن يتجاوز عني يوم القيامة waxaan idinka markhaati gelinayaa buu yidhi hebel 80 kun baan ku leeyahayo inaan ilaahay dartiisu cafiyey in ilaahay anigana i cafiyey igu duceeyey caafa allahu canka wallahu akbar baa layidhi waa loo duceeyo ku kala isna istaago wuxuu yidhi anigana hebel baan lacag ku leeyahay wa ana cafawtu canhu kadalik anigana waan cafiyey kii cajiib buu sheego wuxuu saa u yeelay aan u yeelay buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi haddaan hoosta aan naftayda uun aan arrinta ku siraysan lahaa oo ninkii oran lahaa waan ku cafiyey waxaan ka baqayaa buu yidhi naftu waa naf shaydaano inay igu soo leexato hadhow bukhligii yidhaa war waxaan ma wada cafin kar haa ishrago waxaan ma wada cafin kartide marka saasaan idiin markhaati geliyey buu marka hadalka insha allah waa igu dheeraaday maqsuudkii ujeedada insha allah ilaahay khayr allah idin siiyo kulanka wanaagsaneed isugu timaadeen diinta ilaahay aan u dadaalna insha allah kulley sheekha baabu tashkiil iyo khuruuj fii sabiili illaahi iyo sidaad waqtigiina u ratibi lahaydeen بين الدين والدنيا وبين الحياة والآخرة شيخا إن شاء الله إنه يرمرين دونه ودي كل أنا كمنظم كيانا كهر دعني
laakiin waxaan insha allahu tacaala kulligeen aan saaka aan halkan isku waaninaynaa, naftayda baan ka bilaabe in aakhiro ay aham shay kuu noqoto, in aad saalix mustaqiim salaadaada dikrigaaga awraadaada iyo khayrkaaga iyo ku xidhanka ilaahay iyo diinta ilaahay u shaqaynteeda in aad marmarka qaarkiis fasaxa iyo fii sabiili illaahi aad u baxdaan oo ma garanaysa aad ka faa'iidaysataan khayrkaas ilaahay idin siiyey nicmada alla idin waafajiyey baan isu soo jeedinaynaa. allah yuwaffiqna wa iyaakum lima yuxibuhu wayardaa.